وأيان داهر عبد بدي وهويني متضوعة أو كشقيسة أرمها سمافلكا أيا ديغان كدقمدة دلا كبلوضي مشروع ديربيريسا أو ودد هريريهيغا لغو بيريو مشروعا أي لكاشانيسي وزارة ديرتي داغا أيا waxa soo dhaweeyay mashruucan odayaasha deegaanka degmada Dila iyo maamulka degmada Dila waxayna sheegeen inuu noqon doono mashruuc soo saara bilicda magaalada ugu horeynba waxa halkaasi ka hadashay ayaan daahir cabdi bade oo sharaxaad kooban ka bixisay waxyaabaha ku kalifay inay bilowdo mashruucan dhirbeerista waxana kamid ah hadaladeedii balse laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay aabahayo maanta wax badan ka qabtay magaalada aniga maanta hindisiyo himiladu lahaa aanu bilaabay aan ka daba qaatay aad baan u faraxsanahay farxadayda ma qiyaasi karo isagana waan u ducaynaynaa Allah u naxariistaan leenahay balse laakiin isaga inoo bilaabay geedahantii wadadu ay tahay dhul ayaan maanta anigu ilaahay ii hirgeliyay inaan wax ka qabto marka aad baan u faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo iga garab gashay igu faraxday maxaad wax igala qabatay maayirka magaalada Ibrahim aad baan u mahad celinayaa tan kale ee waashmaankiina isaga la wareegay marka aad baan u faraxsanahay wayaanu ra'yigii baan keenay balse laakiin ummadaydu ilaahay ii garab galo maanta wax walba ila qabanaysa marka aniguna aad baan u wanaagsanaan doona inta in ka badanna waan rajaynayaa inaan deegaanka wax badan u qabto balse laakiin cid kasta oo sidaydaasi ka soo jeeda magaalada waxaan jeclahay oo dhalinyar ah magaaladeena mar walba waxa la yiraahdaa lama dhisto ma aha meel la wada dago waxaan leeyahay umada fariintaad uga dhigtaan waxa loo wada qabtay magaalada hal la qurxiyo dhaxbaynu ku jirnaa maanta waxay naga qurux badan ma jirto waanu qaababka kale ee soo kordhin doono imika waxaan doonayaa inaan iskoolada iyo wadada soo gelitaankayga ka baxdigeegaba boqolaan qaybta shisha aan ka beero laga soo galayo qaybta laga baxayna boqolaan ka beero marka maanta mahad aad aan u celinayaa waxa kale aan mahad aan u celinayaa aan aad ugu faraxsanahay maxay daahir wasaaradda deegaanka maalintan u tagay wii farxad galiyay wixii ku dhaanu geedaha ma iibina adeero balse laakiin dhalinyartaan ugu korinaa halkaas inay wax ay ku ra'yigooda ay noola yimaadaan aan ku caawino marka aad baan u faraxsanahay maalintan u tagay ilaa maanta ay wax walba ay qabanayeen niyadeyda ay jilay marka qof walbaaba oo dhalinyara oo jecel inuu wax qabto waa la ina jecel yahay laakiin ra'yigiina bandhiga oo waxaan leeyahay wax qabadkiina sheegta saad waxa la inaga garab galo waayo daahir aad baan u mahad celinayaa maanta xafiiskiisa buu soo baneeyay inuu aniga dartay u yimaado waan u mahad celinayaa cid kasta oo waalidiinteeda halka taagan ee maanta ku faraxsan magaaladan wax ka qabtayna waxaan leeyahay aabahayna u duceeyo ana ii duceeyo horumar kale inaan keeno waxaan ku faraxdin aniguna aan ku farxo sidoo kalena waxa si ballaadan u soo dhaweeyay odayaasha deegaanka degmada Dila iyo maamulka degmada Dila waxayna u mahadnaqeen mashruucan ay bilowday ayaan daahir cabdi bade ee dhirta lagu beerayo wadada hareeraheega mashruucani ayaan horta aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa maayirkii ugu horeeyay degmadani markii la magacaabay degmada loo dhiibay fikirkii uu keenay anigu markaa shaqaale dawladda hoosan ahaa fikirka isaga keenay wadada in 3 kiiloomitir wuxuu ku beeray dhir oo labada dhinacba kullay dhirtii dhowr sano kadib iyo dhirtii dhimatay dhirtaasi xanaan la'aan iyo waxa u dhimatay markii isaga xilkii laga qaaday maamuladii ka dambeeyay iyaan waajibaadkii ay ku lahaayeen fulinin kulli anagu waxaanu nimidnay meesha dhirtii oo ka maqan oo dhimatay maantana waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ayaan oo fikirkii aabaheed keenay noola timiday annaguna aan si fiican uga aqbalay ayaan waxay keentay wax qabad geedihii waxay soo ka soo qaaday oo soo siisay wasaaradda deegaanka taangigii biyaha loo kaalka ayaa loo yadaa soo iibsay godadka qodistoodiina waan la galay oo annaguna waa la qodnay waxa geedka sida loo beeraa way fudud tahay beeristiisu laakiin waxa dhibta badan geedka sidii loo taabagelin lahaa way muhiimad geedka taabagelistiisu waxay rabtaa sida ubadka oo kale ayay rabtaa 5 iyo 6 sanadood iyo in ka badan in geedka la ilaaliyo la waraabiyo ciidda loo jilciyo goor walba gaad laga hayo ayaa fikirkii haday la timiday annaguna waxa ka saacideynaa ballan qaadaynaa annagoo ah maamulkii degmada inaanu biyihii iyo shaqaalihii ka shaqayn lahaa iyo ilaalintii geedka xanaanintii korintiisii annaguna inaan hirgelin oo qaadano yaan ballan qaadnay waxaan intaa ku darayaa
laamaydii waa laynoo sameeyey quruxdeeda waad arkaysaan waxa qof kasta oo reer dilaada ah waxaan ka codsanayaa laba kasta oo dila isguursada inay hal geed beeraan oo maadaama qoys cusub degmadii ku soo biirayo geedkaa cusubna soo biiro dadka sidaa sameeyana aan ku booriyayna waxaan leeyahay waxaan ilaahay idiin weydiinaynaa inuu ilaahay ubad khayr qabo oo barakaysan iyo arsaaq waasaca ilaahay inuu idinku siiyo iyaanu ilaahay idiin weydiinaynaa kuwa degmada u dhashay ee wax bartay iyo inta kale qurbaa joogtaba waxaan leeyahay waar bilicdii degmada inaan ka wada shaqaynaa loo baahan yahay waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta oo dhalinyartii ay ugu horeyso ayaan daahiray ugu horeyso ay maanta bilaabeen inay geedka nagala qayb qaataan si ay u beeri lahaayeen waad arkaysiin annagu geedkii waan beernay waad arkaysiin sida quruxda uu leeyahay waad arkaysiin dee waxa weeyaan lacag baa ku baxday kharash baa ku baxay maxaan dhahdaa hadda kadibna waxaan nii bishaaraynaynaa inaannu abuurnay meeshii lagu kobcinayay dhirta hadda kadib halkii hargeysa laga doonan jiray in boorama gudaheega dhirta wax alla waxaad u baahan tihiin aad ka helisiin marka waxaa loo baahan yahay sidaa ina taasi ayaan daahir ay ugu dhiiratay inay fikirkaa la timaado quruxda badan ayaa waxaanu jecelnahay in dadka kalena ee u dhashay qurbajoog ha noqdaan iyo qolqoljoog qay doonaanba ha noqdaan inay ka qayb qaataan qurxinta deegaankooda qofkaas uu beeri karaa wuuna xanaanayn karaa jirikaan biyaal degta ku soo qaaday ku waraabin karaa wato waxaan aaminsanahay anuu dhirtu haddii dhir la waayo inuu aadamo noolaanayn ma noolaanayo laakiin ma fahansanin innaku Soomaali haddaan nahay waxa weyn dhirta la beeraa qiimahay leedahay aad iyo aad iska warramayn aad iyo aad bay qiimo badan tahay dhirtii ilaahay noo beerna waan dhammaynay marka bal inaan waxaan isku dayi doonaa inaan beerno dhirtii kale ee ma sotaan noqoto geed kasta noqoto inaan geedun beerno ayaa qofka muhiimadda leedahay waxaan aad iyo aad baad maasiti waana ka qayb qaadanaa waana beeranaa insha Allah geed ka horeeyana taagi doona qof waliba geed buu yeelan doonaa geedkiisaasuu bixin doonaa oodi doonaa ilaalin doonaa anigu geed ka horeeyaan qaadanaya daahir maaha in gudoomiye kaliya wuxuu hajiib aqliga waddanka gebigiisa degmada gebigeeda isaga jiif aqliga ahaa aabina uga sii ahaa alana xasid cabdi bidi kolka waxa weeyaan yani waxay ahaayeen in boqortooyo isdhaxshay ayaan halkii un baka tabatagto iyada maanta joogto oo dee inaku daahir cabdi inuu leeyahay laakiin muddo ma wuli iyada muddo maanta waxna subanaageeduna halkii aabeeday ka bilowday anu waxaan odaashay haddaan caaqil muuse axmed ahay oo degmada ka mid ahay odaashkii daahir cabdille shaqaynayay garabkiisa bidix baan ahaa ciidi xaggiisa iga bixi jiray raxmatullahi caleyh ilaa ilaah naxariisto jannadii firdawsana allah siiyo allah ka waraabo intaasi waa intaasi hadday waxaa ku mahadnaqinaana ayaanoo halkii ka bilowday anagu ogeyn oo geedu sidii maamuluhu sheegay gudoomiye horeba u sheegay waxay dhinteen ku daahir cabdibaari dabadiba dhinteen oo maamulka ka dambeeyay waxba ka qabanay dhirtiina saasay ku dhimatay uu gaarsiiyay intaa ilaa dawladda hoose imka noo muuqata oo labada qarba kolkaa dibadiba iyo dhimatay isla soo hawshi ku dhex jira ayay u timid saacadii ilaahay baa timid ilaahayna jannadana ilaahay ha ka waraabiyo maanta see kol haddii maase waxa aanu naqaynaa oo ilaahayna kaa jirsiini annaguna farxad noo ah ayaanoo halkii ka qaaday aabaheed oo hagaajisay oo maanta weliba cusubay maxamed cumar sheekh ibraahim baa la yidhaha anu waxaan dadka qurbajoogga ah gaar ahaanna waddanka ka tegey inay wax u soo bartaan deegaanka kadibna soo noqdaan laakiin waqti hore ay ahayd taas oo sheegi maayo waqtigii ahayd ilaa muddadaan waxaan leeyahay maaragtay waddan gariiskaan joogaa yacni waa arrintani waxaan la yaabana muddo badan baan beryihii hore ee 15 sano ka hor marwal baan barnaamijyada maaragtay media usoo marin jirnay waa deegaanka iyo badbaadada deegaanka iyo badbaadada dabeecadda dadkii dhagaha u lahaa waqtiga ma jirin oo dadku waxa ku jireen nolosha si loo badalin la qof ka fikiraya xageed seexan maxaad cuni iyo xageed waxa weey inaad kala hadasho deegaan waxaad noqonaysaa dadkii maartay yani boqortooyadii Francisca la oran jiray yani maxay dadku way gaajoonayaan bal dadka hadii rooti loo waay maxay keega cuni waayeen bay maartay yaa la yiri boqortooyadii maartay marka waxaan ka baqnay in dadka inaan ku dhirta u ka hadlo badbaadiya deegaanka iyo dadkii baahidooda kala haysato waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in arrinta laga soo gudbay in dadku dareemeen muhiimadda ay u leedahay maartay dabeecadda badbaadada ciidda yani dhirta muhiimadeeda ka sheekeynayno dadoodu waa yeelay nagu jira iyo dad badan wax soo bartay marka taa runtii ku fogaan maayo waxaan kaliyoon ayaan leeyahay waxa weeye initiative-ka ay qaaday iyo qorshaha ay qaaday
inaan aniguna fariintaa qaado oo dadkii dibadaha joogay geeyo laakiin waxa weeye dadkeenu wali waxa yani dawladda wax qabata iyo dadka wax qabta wadamada aan joognay dibadaha ah dadku waxay qabsadaan ba dawladdu waxa weeye waa structure-kii iyo nidaamkii iyo sharciyadii wixii bay samaysaa laakiin dadka wax qabsada waa dadka weeyaan marka idinkuna inaad waxaan moodaysaa yani dadku soo fahmayaan inay muhiimaddu ay tahay dadka wax dhib faraqa sameeya marka waxaan ku waarin lahaa maaragtay walaashay inay haddayna already magac hay'adeed samaysanay in magac hay'adeed samaysato waayo maanta la iskuma caawin karayo gabadh ayaan la yidhaahdaa ma furatay mashruuc dhirta oo dabadeedna in la caawiyaan doonayna lacag keenadaan dadku xorayaan oo magac ayaan waa gabadhii furtay hay'addu magac ma leedahay la weydiinay marka waxaan ka codsanayaa walaashay inay ku kordhiyaan hay'ad magac in loo baxsho in nidaamkii la mariyo dabadeedna waxaan aniguna ku yani mataqaanaa waxaan weli yani mataqaanaa u ahay German u ahay guddi yani urur ay ku jiraan خبيرتي سومالي كشقين جري مالتي أجنبي جاها ولا إلى ecological society أو يعني ويب سايت يوحول بله مركا وحنا هذا ما تكتب ديوان ولا بلان قاضي يعني نظام كد مركا يوافق جس أيام استرجر كي يعني متقن قاب كي النظام كي شرعي قوسم يساعده إلى هايد يعني دقائق الوعى وينكر إلى نقطة أنت هسه أنا فريت هسه قاضية أيام ما ها قبض كيدو درتنا وما بيها أروسي ذي دستام مسكيد ذي دستام مدرسة ذي هاي دستام كورن بيعاوز سوا ناقد جدا وناقد قبض كيدو نعرف لبدين حي درين بدن فريد نفر بدن نكتيرتو لكن حنشعل هاي إلا قرب شوسه قربانا كقرب عكين عاو مدي دنو حويان ني إلهي درت وقت كستضيف وعاوسو أي تعيش هاي وانا جاورد هذا كيس ما تبدي دبسي ديني لو فوق بتربتها دلنا وحبا قدر يدك وحبا تشوق أبانا نقول طرمانتي دجان كم تشعله دك إسكاله لكن كم باقو حن مرنين دتك ودوسو تشيستان وحكا صدع يا أيام باقو قدر يا إن وحن أكيد بدن بانو كوض الشقين دجان كان إسكاله وحي وضد أفتقينا عاد وحقبت كودو فرب بدني هاي لكن مرة هذين مقالو دي بحاجات سنة وحقبت كودو حكومة تعمل يا اللي دول كودو أصلا نقدام بتشعله أيام إلى هاي وحقيقة بنا يسمي سات حسنات هو قدرة هذا أنا وحن كعصام معين دي سفي عن أيو حاويانو تذكر بعديها لفتي زين لا وعي قليو باهي هاي قلت لقى واحد قليو كلا جرى يطلع بيري waxaan oran lahaa markaa dadku halala socdaan iyo hay'adda dhirta waxaan u sheegaynaa in xataa baadiyaha tagto dhulka heeruu degan yihiin ee bilaa dhirta ay dhirayso oo ay magaalooyin kulmaha ay dhirayso magaaladana waxaan leenahay war quruxda iyo biricda la idiin keenay aad uga faa'iidaysta oo dhowra xaabada bari laga guri doona markaa kolka xaabada laga gurana xoolaha cuni doona taana dee kolley waxa uu jooga maayarkaa dee xilkaana qaaday isaguna uu mahadsan yahay marka waa in waraabka iyo wax walba la ogaado waxaa laga taxadiro oo ina taasi aan la hami jabin noqotay markaa the daughter yani gabadh hirgelinaysa the dream of her father yani riyadii aabeed ee ka bilaabantay degmada Dila marka waxaan hambalyo gaar u soo jeedinayaa ayaan sidoo kale laba umban markaa anigu oran lahaa qolada deegaanka hadday noqoto gudoomiyaha degmada iyo hadday noqoto qolooyinka deegaanka gudoomiyaha degmada waxaan oran lahaa adiga ayaa ka mas'uula hawlaheedii iyo waxqabadkeeda waxaan oran lahaa waa inaad ku dhiirigeliso dhalinyarta degmada u dhalatay ama degmada degan inay wax badan ka qabtaan degmada oo ay ka mid tahay ayaan maanta ugu horeysa dhalinyarta degmada wax badan ka qabatay geedkuna faa'iidooyinka uu leeyahay saddex uun ka soo koobi lahaan kow wuxuu horta geedku marka hore ka qayb qaadanaya dhirtu waxay soo deysaa oxygen-tuna waa taa bini'aadamku u baahan yahay uu quuto waa maxamed cumar jaray shabakada caalamiga ee Boorama News magaalada Dila